kulan hawleedkani oo socon doona muddo 2 maalmood waxa uu la xiriiraa dib u qiimeyn iyo qorshe uu sameeyay wasaaradda warfaafinta ee 5 sanadood ee soo socda. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse oo hadal furitaan halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda uu leeyahay kulan hawleedkani iyo baaxadda hawsha wasaaradda, taas oo uu tilmaamay laga maarmaanimada in la dejiyo qorshayaal waxtar u yeesha hawsha ay wasaaraddu u hayso qaranka Soomaaliland. hawshan waa hawl aynu doonayno in aad dib ugu qiimeysaan wasaaraddeena oo dabeeto u samaysaan qorshe ay marka dambana ku shaqayn lahayd. waa hawl muhiim ah, fadhi ay iska fadhidaana maaha. waxaynu doonaynaa inaynu fahanno halkeenu ku soconaa, halkeenu ka dhaqaaqaynaa. dhibaatooyinkayna haysta inaynu fahanno, kuwa aynagu samaynayna inaynu fahanno, kuwa ay aqoon darradu sabab u tahay inaynu fahanno, kuwa inooga baahan dhaqaale inaynu fahanno, halkeenu ku soconana inaynu fahanaa baynu doonaynaa. waxa uu wasiirku ka hadlay maxsuulka ay leedahay isugeynta aaraada iyo rayga la isugeeyaan. markaa fikiraysaan ee qorshaha waxaan ay qaybsateen ka fikiraysaan, waxa madaxa ku haysaan adigoo ah wasiirkii, adigoo agaasimihiya, adigoo ah qofkii kaliya ahaa wasaaradda ahaa, wixii aad qaban lahayd ee madaxaaga ku jira ee aad ku riyooto ku dar qorshahan. waxaas wuxuu noqon doonaa wax macno yeesha marka raayiyada kalena lagu biiriyo. mudane Cabdilaahi Maxamed Daahir Cukuse wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxa uu tilmaamay qodobo kamid ah tallaabooyinka lagu horumarinayo adeegyada baahinaha ee wasaaradda warfaafinta. waxaynu u baahanno sanadkan aynu samaynaynaa idaacad waxbarashadu u gaara, idaacad waxbarashadu kaliya u gaar noqota, idaacad dhaqanka u gaar noqota, dhaqanka, idaacad entertainmentka iyo madadaalada u gaar noqota. idaacadahaasaynu samaynaynaa oo FM ah oo fara badan oo magaalooyinka waaweyn aynu dhigno. marka qofkii iskuul dhiganaya idaacadan oo kalaaskeedu xidhiidhsanaado oo wax laga baran kara baynu samaynaynaa. waxaynu samaynaynaa mid xayeysiisyadan waqtiga inaga cuna oo dhan u gaaraba, idaacad u gaaraba baynu samaynaynaa. marka ku dara raayadiina ku dara, sanadkan baanaynu intaaba samaynaynaa. idaacadda macallinkii idaacadda ma hayno weli, keebu noqon doonaa wasaaradda waxbarashadaynu weydiisanaynaa, ma inagaa rag kartida leh oo ku darsana. waxaynu samayn doonaa board baynu samayn doonaa TV-ga iyo idaacaddaba barnaamijyadooda xukuma oo tafatirayaasha guud ee jooga ay madax ka yihiin, board ka taliya iyo qaar monitor gareeya. waxaan doonayaa in sanadkan cusub wixii aynu sameynaynay oo ka duwan wixii hore, dhaqaalana waynu haysanaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin, aqoontiina waa leedihiin, aynu ra'yiga isku biirino, barnaamijkuna sidaa ay noogu socdo. wasiirku isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ugu dambeyn ka qaybgalayaasha ku dardaaray in looga fadhiyo in kulan hawleedkoodaasi ay ka soo baxaan qorshayaal meerdhar ah oo dhexaad u noqda horumarinta waxqabadka wasaaradda warfaafinta waaxyaheeda iyo qaybaheeda kala duwan, gaar ahaan kuwa la xidhiidha adeegyada ay qaranka u hayso wasaaradda warfaafintu. agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Cilmi Aadan oo ka hor wasiirka wasaaradda warfaafinta isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu ku nuxnuxsaday muhiimadda kulan hawleedkan. maareeyaha guud ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Khadar Xasan Cali Gaas hadal uu isaguna halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu ka waramay hawshani la isugu keenay agaasimayaasha waaxyaha iyo madaxda qaybaha ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland, baaxadda ay leedahay iyo sida ay laga maarmaanka u tahay in maxsuulkoodu uu noqdo mid loo aayo. macalinka isaguna hagaya kulan hawleedkaasi ayaa hadal hordhaca halkaasi ka jeediyay.